axkaamtaasi ayaa bini aadanka ilaahay u soo dejiyey hadday dadku axkaamta ay raacaanna way hagaagayaan adduunkooga u hagaagi aakhiradooda ayaa u hagaagi hadday dadku axkaamta ilaahay soo dejiyey ay raaci waayaan adduunyadooduna waa ka khasaare way ka halaabi aakhiraduna way ka halaabi walaalayaal oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegoo yidhi man kaanat iddunyaa hammahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi walam yaatihi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu qofka hamigiisa ka dhiga buu nebigu leeyahay adduunyo kaanat iddunyaa hammuhu labada indhood dhexdooda faqriga baahi loo saaraa umuurtiisana ilaahay barya galbeedba ku kala shaydhiyaa umuurtiisoo dhanna waa la kala tuuraayo waa la kala daadiyaa adduunyadana ma helo buu nebigu yidhi ilaa wix ilaahay u qadaray mooyaane qofka aakhirada ka dhiga hamigiisana ee aakhirada ilaahay wuxuu la hortagaya ka fikira ee iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo taacadda ilaahay ku dadaalana faqriga ilaahay waa ka saaraa qalbigiisoo qina ayaa loo geliyaa qalbigiisa umuurtiisoo dhanna ilaahay jalla wacalaa waa iskugu soo ururiyaayo arrimihiisa waa la isku soo dhadhoweeyaa adduunyaduna iyadoo dullaysan bay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi